بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين daawadayaal caawa uma soo fadhiisan halkan inaan idinsoo gudbiyo cashiradii aad iga barateen oon u magacdaray quruxda af soomaaliga. caawa waxaan halkan usoo fadhiistay aan jeclaystay inaan idinla wadaago videogan isaga ah, taasoo aan raba inaan idinku soo gaarsiiyo fariin gaar ah oo ku socota dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed. walaalayaal, soomaalidu waxay tidhaahaa war la qabo xiise ma leh. sida aan la wada soconno baryahan idaacadaha, telefishinada iyo wargeysyada waxay wax badan ka qorayeen in 800 oo ciidan oo ka socdo waddanka Sierra Leone ee galbeedka Africa in lagu talo jiray in la keeno waddanka Soomaaliya. hase yeeshee intaynan imaan baaritaan lagu sameeyey ayaa waxaa dhacday qaar ka mid a askartii in laga helay cudurka dilaaga ah ee la yidhaaha Ebola. sidaa daraaddeed ayaa waxaa keentay in 800 ee ciidanka ah ee reer Sierra Leone laguna talo jiray in ay ka mid noqdaan macnaha ciidamada Amisom ee ka howlgala waddanka Soomaaliya in la hakiyey. wararka aan hubinna waxay nagu soo gaarayaan in loo qabtay 21 casho ama 21 beri kadibna lagu samayn doono baaritaan kaleento. haddii wax laga waayana in lasoo diri doono oo ay ka mid noqon doonaan ciidamada Amisom ee ka howlgala Soomaaliya. haddaba fariinta aan u dilo ummadda Soomaaliya waxay tahay arrintaasi waxaa habboon inaan kasoo horjeesano intay goore tahay dhowr sababood aagood. waa marka ugu horeysa ciidamada baaritaan kasta oo lagu sameeyo cudurkan astaamihiisa hal baaritaan kuma soo baxayso oo lagu ogaan karo. wadamadii horey u maray caafimaadkii dhinac waliba ka hormaray sida Maraykanka iyo Spain ayaa weli qadyaan ka taagan cudurkan oo xakameyn laha. marka baaritaan afrika lagu soo baaray wax xale uu keenayo aniga iima muuqato. cid kastana way u muuqataa taasi. sidaa daraaddeed waxaa habboon in sida ugu wanaagsan oo looga hortagi karo ay tahay in ciidamadaasi gebi ahaantoodba la joojiyey keenista la keenaya Soomaaliya. maanta Soomaaliya 800 oo ciidan ah oo Sierra Leone laga keenay waxay u soo kordhinayaan iyo waxay u dhimayaan haba yaraatee ma jiraan. sidaa daraaddeed dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan ku dhiirigelinayaa inaan u istaagno inaan samayno dibadbaxyo aan uga soo horjeedno arrintaas iyada ah. caalamka oo dhan ku ogeysiinayno inaynan rabin in ciidamadaasi loo soo daabulo waddankeena. fariintii qaybtii labaad waxay ku socotaa dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed ee qaaday oo dusha saartay mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed. marka waxaan dhihi lahaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay u turaan ummadda Soomaaliyeed kana shaqeeyaan wixii dan u ah. waxaanan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsida badan u qabtaan shir degdeg ah oo ay kaga soo horjeedaan arrintaasi. go-aan bayaan cadna ay ka soo saaraan ay ku diidayaan in ciidamadaasi la keeno waddanka Soomaaliya. haddaba dhammaan ummadda Soomaaliyeed, madax, maamul
dadweyne waxaan dhihi lahaa in arrintaasi hal meel aan uga soo wada jeesanno si aan u caddayno ama aan u midayno fikirkeenna ugana soo horjeesanno keenista ciidamadaas waddankeena. soomaaliya maanta uma baahna dhib kale, inta dhib haysta ayaa ku filan. sidaa daraaddeed walaalayaal aan u duuban aan u istaagno sidii aan u badbaadin lahayn ummadeenna soomaaliyeed. farinteenii caawa intaas ayay noo eg tahay, laakiin intaan ka bixin waxaan jeclaan lahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku tixan xiriirka facebooka in ay fariintan faafiyaan ama ay la wadaagaan asxaabtooda si fariintaas ay u gaarto. sidoo kale qof kastoo soomaali ah in uu sameeyo macnaha wacyigelin lana wadaago ummadda soomaaliyeed wax alaali waxa uu ku samayn karo, caddeeyana inuu ka soo horjeedo arrintaas iyada ah. fariinteedii gaarka ahayd caawa intaas ayaa nooga eg tahay. wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu.